madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararku waxay sheegayaan inuu dib ugu laabanayo magaalada Kismaayo. Qorshayaal ayaa jira uu maleegayo Axmed Madoobe oo mucaaradka iyo sidoo kale talooyin ka helayo madaxweyne Siciid Deni oo ay iskula dhaceen safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib uga soo laabtay magaalada Kismaayo. Haddaba maxaa ka jira in uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu booqan karayo ama tegi karayo ama laba kulma karayo xubnaha ugu sarsareeya ururka Al-Shabaab ama laga cabsi qabo inuu bilaha soo aadan gaaro deegaanada ay haystaan ururka Al-Shabaab gaar ahaan magaalooyinka Jilib iyo Ceelbo. Soo dhawaada saaxiibayaal, qodobadaas ayaan si gaar ah u lafaguri doonaa. Muuqaalkan haddii ku soo gaaro sii sheer garee aragtidaadana hoos uga dhiibo. Wararka aanu ka helayno ama xanta ah ee siyaasadda Soomaaliya saaka si weyn suuqa looga wadwado waxa ay ugu weyn in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gaarayo magaalada Kismaayo safarkiisii labaad uuna ku tagay kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu safarkiisan soo aadayaa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay deegaanada gobolka Gedo ka wado dhismaha maamul cusub oo ay dowladdu ugu magac dartay New Jubbaland kaa uu lagaga soo horjeedo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo xukuumaddiisa. dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland horey waxa ay isku fahmi waayeen iskuna diideen markaa aragtida ah in Jubbaland uu madaxweyne dastuuriya ka yahay Jubbaland Axmed Madoobe taa oo Axmed Madoobe uu ka biyo diiday lana isku fahmi waayey aragtida doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo deegaanada Jubbaland. dowladda federaalka iyada qudheedu waa ay isku diidan yihiin aragtida ah in la gaaro magaalada Kismaayo dibna loola kulmo Axmed Madoobe. waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta badan siyaasadiisa waa saaxiibadiisa siyaasadeed iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse iyo la taliyaashiisa qaaska ah ka aragti diiday in uu ka baaqdo safarka magaalada Kismaayo oo dhowaan la filayo inuu dib ugu laabto magaaladaas. Axmed Madoobe waxa ay mucaaradka mayalka adag iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland ay kula talinayaan in uusan noqon tukihii caanaha helay ee calfan waayey maadaama horey uu Xasan Sheekh Maxamuud u gaaray dagaal siyaasadeed oo xooggan oo dhiig ku daatana uu kala dhexeeyey. madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa maalmihii u dambeeyey si weyn ugu tashkiilinayay Axmed Madoobe in fursaddii horey u soo martay aynan dib u dhaafin maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu Kismaayo gaaray dibna uga laabtay isagoo nabad qaba weliba aynan ka heshin wixii ay isku hayeen. Axmed Madoobe iyo Siciid Deni asbuuc ka hor ayay markaa si weyn iskugu fahmi waayeen booqashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaaray Kismaayo taa uu Deni u arkayay fursad dahabi ah oo soo martay dhinacyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale mucaaradka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'doon looga dhigi karay magaalada Kismaayo sida uu qabo si loo badbaadiyo siyaasadda dalka. sidoo kale xubnaha mucaaradku waxa ay qabaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaaro magaalada Kismaayo lagaga saxiixi karo qodobo muhiim ah oo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradku isku fahmi laayihiin loona dhici karo jeelka magaalada Kismaayo taa oo si weyn ay iskugu diidan yihiin mucaaradka iyo sidoo kale maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa markaa aad ugu walaacsan arrintaasi iyo siyaabaha uu ka yeelayo maadaama uu Axmed Madoobe aaminsan yahay inuu yahay nin loo martinayo isla markaana gurigiisii qayb dab looga shidayo oo maamul cusub lagu garab dhisayo. dowladda federaalka Soomaaliya lama oga siyaasadda ay ka leedahay maamulka Jubbaland oo ay marna Kismaayo kula kulmayso marna Gedo ka dhisayso. sidoo kale beesha Mareexaan iyo beesha degta gobolka Gedo ayaa isku arkaya ama loo arkaya inay yihiin plan B oo loo adeegsanayo markaa siyaasadda haddii Axmed Madoobe ay dowladdu la heshiisana ay yihiin buug la laabay haddii dowladdu Axmed Madoobe ay isfahmi waayaana ay noqonayaan mid lagu fuulo salaanka siyaasadeed ee deegaanada Jubbaland. beesha Mareexaan weli wax go'aana kama soo saarin balse waxa ay mar walba markaa ka warsugayaan iyagoo isku arkay inay yihiin plan B-ga dowladda in jawaabta Axmed Madoobe lagala soo laabto ay ku camal fali doonaan. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga cabsi qabaa inuu bilaha soo aadan booqdo deegaanada ay haystaan ururka Al-Shabaab gaar ahaan magaalada Jilib iyo gobolka Jubbada Dhexe oo si weyn ugu xoogan yihiin ururka Al-Shabaab. waxaana taa loo aaneynayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tallaabooyinka siyaasadeed uu qaadayo uu ku xumaynayo ama uu kula ficiltamayo siyaasiyiinta mucaaradka ah gaar ahaan siyaasiyiinta kasoo jeeda Muqdisho kuwaas oo uusan waxba ka talagelin safaradiisa iyo sidoo kale hannaanka geedi socodka ee dalka. waxaana uu qaadaa tallaabooyin aragtiyadooda ku aadan siyaasadda mid ka duwan oo mar walba meesha ay ka filanayaan si weyn ayuu uga aragti duwan yahay haddii xitaa uu aaminsan yahay in aragtidaas ay saxan. haddii uu gaaro deegaanada ay Jubbaland maamusho maadaama si weyn isugu dhacsan yihiin Xasan Maxamuud oo aaminsan yahay inuu fadhiga ugu tegi karo Cali Dheere iyo tiimka ugu sarreeya Al-Shabaab
ee ku sugan ceelbuur iyo sidoo kale jilib waa hagaag wixii ka soo kordha madaxweyne xasan sheekh gaariyo jubbaland iyo sidoo kale tillaabooyinka ay qaadayaan mucaaradka iyo maamulada jubbaland iyo puntland wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaad ku daawa